السلام عليكم. فيديو كان هدوك سو gaaro waxa iga codsi ah fadlan inaan lagta ii saarto oo ii share gareysid si ay u gaarto dadka arintan ay khusayso. Waa arin run ahaantii aad iyo aad u foolxun oo runtii dumarka badankooda haysata dumarka isla kaliya ku nool maaha dumarka dunida oo dhan haysata laakiin maadaama aniga isla ku noolahay waxaan rabaa inaan arintan aan dadka ku soo jeediyo. waa arin aniga shakhsi ahaan igu soo noqnoqotay oo ugu dambeynna aan go'aan ku gaaray inaan innaba ana la aamusin oo qarsan. waana tan igu kaliftay inaan maanta TikTok soo dhigo. sheekeer baa idin kaga dhacaya. maanta waan soomanaa waxaan u doontay suuqa adeeg yar oo aan afar ku karsado. anigoo wadada sii maraya ayaa nin Soomaali oo dhalinyaro ah garab maritaan kaliya ma ahayn si aan shaxuma ayuu ii taabtay. dib aan u soo eegay oo iska sii socdaa. waanu yaro waxaan weydiiyay sababta ku kaliftay wadada intaas laag inuu inta ii soo dhawaado jismigayga si aan shax daraa ugu taabto. wuxuu iigu jawaabay nayam aniga taas leedahay markaas waliba gacanta ii qaaday. waxba igumaanu dhufan laakiin naftayda waxaan ka ballan qaaday noloshayda inta ka dhiman sidaas oo kale inaan igu dhacin. saa darteed ma qarba magaalada la soo aadaya markaan soo baxabo laakiin inta i garab mara jismigayga saa u taabta dhiiggiisaa qubanaya waana badan. السلام عليكم. فيديو كان هدوك سو gaaro waxa iga codsi ah fadlan inaan lagta ii saarto oo ii share gareysid si ay u gaarto dadka arintan ay khusayso. waa arin run ahaantii aad iyo aad u foolxun oo runtii dumarka badankooda haysata dumarka isla kaliya ku nool maaha dumarka dunida oo dhan haysata laakiin maadaama aniga isla ku noolahay waxaan rabaa inaan arintan aan dadka ku soo jeediyo. waa arin aniga shakhsi ahaan igu soo noqnoqotay oo ugu dambeynna aan go'aan ku gaaray inaan innaba ana la aamusin oo qarsan. waana tan igu kaliftay inaan maanta TikTok soo dhigo. sheekeer baa idin kaga dhacaya. maanta waan soomanaa waxaan u doontay